waxa ugu horeeya ee maskaxdaada ku soo dhacaya markaad aragta maska waa inaad raadsataa ul ama dhagax oo aad isku daydaa inaad disha ama aad ka cararto laakiin sheekadan aad bay markaasi khatar u tahay waxaana markaasi jilaya ninka markaasi lagu naanaysa maska ninkan ayaa jidhkiisa waxaa markaasi uu ku daboolayaa kumanaan masas ah oo duurjoog ahi kuwaasoo weliba suntoodu ay aad markaasi halis u tahay nooca masas ee ninkan ee afkiisa markaasi aad arkaysaan ee ka soo baxaya iyo kuwa kale ee markaasi xabadka uga wada jiifa ayaa waxa ay yihiin ee maska loo yaqaan abeesada weliba noocani waxaa lagu leeyahay waa mid markaasi qofka bini'aadanka waxay ku ciqaabaan qalad kasta oo ay galaan haddii uu noqdo qaladkaasi mid yar iyo mid weyn waxaana ay keeni karaysaa qaladkaasi kadib in ay ku qaniinto oo sun halis ah ayay bixinaysaa taasi oo keeni karaysa inaad markaasi dhimato ninkan lagu naanaysa ninka maska ee jidhkiisu ay ku daboolan yihiin kumanaanka mas ee aad arkaysaan oo weliba qaarkoodna afkiisa ayay ka soo baxayaan ayaa waxaa lagu leeyahay waa mid xitaa habeenkii la seexda xilliyada dambe oo waa uu ilaaliyaa mararka qaarkood waa uu la casheeyaa waraysi uu bixiyey ayuu ku faanay ninkan in mas kasta oo ku dhiirada in uu qaniino inuu ka doorbidi lahaa inuu dhinto taasoo ka dhalata baaliyada awoodda aan caadiga ahayn ee iminka uu leeyahay baqdin weyn ayaa laga qabaa sheekada ninkan oo bulshada deegaanka ayaa aad markaasi uga walaacsan waana kuwa aad uga baqa goobta uu ninkani uu joogo iyo sidoo kale halka uu markaasi u marayo waxaa xaruntiisa laga helay dhammaan noocyada masaska sida bayton kobra iyo masas kale oo runtii suntoodu ay aad halis u tahay maxaad u malaynaysaa ninkan abeesada markaasi la nool adigase miyaad ku dhiiran lahayd sida tani